بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مولى في عيهاي أنا أقول نسكف في عنا هاي ما أنت ده واحد مدرسة مرسمر إنه يرتها وقرح يربع نص بحضيو كالا رقدي ما شاء الله إن واحد رجيني يا غفل بمشي تشوقو إيه هالكودكيني هي الكونيلين عافمة طبيعنا وطبقو كوهايستو إن محارة هضايي intaa markaan kasoo gudbo dee waxa maxaan dhahday adduunyada waska alxamdulilah barwaaqata sooran baa lagu jira wax kasta ilaahay keena alxamdulilah rabbil caalamiin maanta laakiin waxaan idiin soo wadaa oon idiin hayaa yacni bini aadanka maaragtaa limit ma laha limit bini aadankeenu ma lihin maxaan dhahaa waxaan ka wadaa haddaynu dhibaataysanahay waan cabanaynaa haddaynu xanuunsannahay waan cabanaynaa haddaynu wax haysanayna waynu kibraynaa oo xadkaynu ka baxaynaa so meel inoo wanaagsanba ma jirto bilaadan haddaynu nahay taa waxaan ka wadaa dadka ilaahay wuxuu dhiibay يعني dad baa jira intay ilaahay dee waxaan ku uri nimcadiisa ku manaystay oo haddana ilaahay rumaysnanayn laakiin maskaxdooda u bedelantay nooc kale dad kaloo muslimiina way jiraan oo ilaahay wuxuu dhibay laakiin haddana ku tafaraqa maxaa dhahda waxaa nimcada ilaahay siiyey oo ku fasahaada oo ummadana ku dhiba oo muslimiina baa jirta dadaan muslimiin ahayna caynkaasoo kalena way jirtaa yacni bini-aadanku waa isku wada mid weeya taas waa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay inoogu keenay adduunkan imtixaanka because bini-aadan baynu nahay dhinacna ma xamilayno haddii barwaaqaynu ku jirno waynu kibraynaa xayawaankaynu ka caqli xumaanaynaa haddaynu gaajoonnona waynu ooyaynaa waynu cabanaynaa so marka labadaba ilaahay mar qura adduunka wuxuu keenay ummadiisa ku imtixaamay waa in maxaan dhahday balanska lagu jiraa aan la kala sareynin kii dadka wax haysta ee rijka ah quluubta kama degana madaxay faqri ka yihiin laakiin guudka waxaynu ka aragnaa inay yihiin rij laakiin madaxay faqri ka yihiin faqriga ka yihiin ma iimaansana nimcadaa ilaahay siiyey nimcadaa hortaalla ee ilaahay siiyey ma iimaansana wuxuu moodaya inuu weli uu yahay faqiir wuxuu raadinayaa mid kale ka badan maanta wuxuu haystaa 1 million okay waa inaan million kale ku daraa waa inaan haddana 2 milyan baa ilaahay haddana siinaya marsone may waa inaan million kale ku daraa milyan kale marka wuxuu ku jiraa safar unu odhanayo lacagtan kordhiyo oon xoolaha kordhiyo ayuu ku jiraa dasmiin qalbigu fiqir weli ka yahay qofkaasi lacag wuu haystaa guri wuu haystaa nolol wuu haystaa laakiin qalbiga ayuu fiqir weli ka yahay taas waa ay iimaanku nooga maqan yahay dadka wax haystaa inta iimaanka le waa yartahay ummadii kale maxaana lacagtii ka xayuubinayaan ummadii kale hoos u liidayaan ummadii kale dhibayaan because wuxuu rabaa isagu intiisaas inay safe noqoto in kalena uu helo uu ku darsado marka waxa weeye adduunyadu waa cajiib moogtaa marka sheekan maanta idin wadaa Japan bay ka socotaa 2018 waa ninkan lasoo duubay ajalada in badan baan hayay halkan iigu jirtay laakiin sheekadu waxay ka dhacay 2018 ninkan nimcadii baa ka badatay nimcadii markay ka badatay ayuu yiri war anigu maxaan ku falayaa bini-aadan iyo xuquuqdooda iyo baqaaqdooda maxaan ku falayaa wuxuu waxaan guursanayaa buuri waxaan deena waa carusad yar bana carruurta yar ku ciyaar habla yar ku ciyaar carusad yar maxaan dhahday toy yar oo duka yar oo la sameeyay tanaaba aniga aan guursanayaa oo gabadhaydii noqonaysa yar intan la egtay wuxuu marka la ilaha illa allah rasulullah marka bal waalida ay la daawada Japan bay ka dhacday wal iska daawanayna waa in wax kasta adduunka ka dhacayn ogaana moogtaha maha community Soomaali kaliya inaan ku ekaano maha adduunka kale waa in eegna aragna waxa ka socda
الله يا رب إلهنا بدبادي وكننكي from Japan staged a wedding to the fictional pop star Hatsune Miku. The moment I fell in love with her was when I first listened to her song Miracle Paint. That was what mesmerized me. This was a time where I was sort of saved by her. Akihiko had been struggling with loneliness and depression. It was a very low point in my life. Her song brought a sense of joy and happiness to me that I hadn't felt in a really long time. It's worth knowing that Akihiko is not unique. There have been many other documented cases of people falling for fictional characters in Japan. I would say the reaction is varied. There were friends who understood where I was coming from, and there were friends who didn't. Miku became an essential support for Akihiko as he started to rebuild his life, a source of creativity, expression, and comfort. I believe that whatever form of a person, object, character, or virtual being that anyone falls for and finds any sort of puzzle piece that fulfills them, I think that's what's meant for you. Happiness and joy, any sort of absorbing, affectionate feeling is necessary as a human, regardless of where that comes from. Having that love, having someone that you can lean on and help you build that happiness together, I think is what's most important. In 2018, okay. Yakasa. aroos baa loo dhigay ninka depression iyo waxbaa ku dhacay dee haa markii lacagtii badatay bay waxay noqotay baashi mental issue isu bedeshay mental issue bay noqotay depression bay noqotay wax kale noqotay deetana wixii madaxa ku jiray wuxuu ku yiri waariyaa uu bilaadanka ka maarano hadee bahasha caruusada yar ba hada bal ku eego waxa tirantaasan guursanaya iyadaaba ku jecel wadarkiisa sidoo amaanay bahasha yar umaduna isugu timi anigu waxa iga dara waxaan u maleynayaa waqtigii waalida lagu wadi jira wallahi waqtigii waalida lagu jira ninkan anigu imka markaan saa u eego lama yaabani dadka arooska ka soo qayb gala ayaaba ka sii waalan isaga naka sadka meesha fadhiyay labada dhinac arooskiisii baa laga soo qayb galay nin caruusad guursanaya caruusadii maaha caruusadii dee bilaadankeed ma waa caruusadii duki yaraa weeyaan tooyigii yaraa waka adduunkaasaynu ku nool lahay wax kastoo adduunka maaragtaa la odhanayo hebelow waad ku saxsantahay hadduu khalad ku socdo iyo hadduu saxsan yahay hebel odhanaya forward u soco la odhanayo ayaynu taaganahay waqti la odhanayo war waad khaldan tahay yacni waxaan ogaaday haddii la yidhaho qofkaas waad khaldan tahay wuu kasii darayaa wuu waalanayaa malaayi isku sukicinayaa dee shaydaankii baa ku dhex jira moogtaha marka waxa ilaahay laga baryaa ilaahay oo rabbigayo arsaaq igu arsaaq aanan ku fasahaadin arsaaq igu arsaaq rabbigayo aanan ku fasahaadin ay ilaahay laga baryaa marka taa ka soo gudubno adduunyadu waa iska waxa weeye barabalaynkeedu waa badan yahay mid kalaan kusoo 3 waxbaan maanta ka hadlay kowde calafkaaga marka meel u galo adag oo dee ilaah baa waxaan una qoray waa mucjiso nin caraba iyo gabadh carabiyada waa nimka idin hayaa oo labaduba ninku tiktok wacan ka ahaa show ninku waa dilaayo ummadii buu mariyay gabadhan se kuuma oga marka maxaan dhaqtay gabadhii adigu ninkii waa la isguursaday ilmaa la isu dhalay inan baa la isu dhalay ninkani wuxuu joogaa meesha la yiraahdo Egypt waxa weeye Masri weeyaan waa maadar gaboobay weeyaan dhowr qof buu dilay maxaa dhaqtay adigu dilkiiba ku soo cadaaday maxkamada la saaray ninkii waxa lagu xukumay in la dilaan maleynaya mise waa la dili doonaa filaya marka
ilmihii yaraabaa in gabadhii laga xaday isaga hooyadii miyaa mise ay aayadii baa loo geeyey iyadoo iminka inankeedii yaraabay raadinaysa gabadhani marka la leeyahay backgroundka qofka biniaadanka ha la soo baadho siyaabahan bay ku maartay ku fiicanta inaad heedaan aanaad ka dhicin bal ninkan She's turning back to TikTok for help. You see, this is her ex, Kareem Salim. But before he became known as the New Cairo Butcher, he was a TikToker with over 600,000 followers teaching people American slang. But then, in May this year, he was arrested for the murder of multiple women in Egypt, and a few months later was found guilty and sentenced to death. This case was huge in Arab media due to how shocking the crimes were. Investigators found that he had soundproofed his apartment so that when he tortured his victims, no one would hear them scream. It was so gruesome that when videos which he would record himself were played in court, his entire defense team of 5 lawyers immediately withdrew from the case and apologized to the judge for ever representing him. And I'm skimming over this, but it's like Ray William Johnson next video, kind of bad. Anyway, his ex-wife, who had a child with Kareem but had been separated for the past 3 years, claimed that she had to go into hiding and flee to the UK because he tried to kill her and her sister multiple times. But then just yesterday in a TikTok, she said that Kareem had taken her son and he's now with Kareem's mother either in Egypt or America. So she's desperately trying to raise awareness so she can find him and be reunited. And if you want more details, I've tagged her profile below. maqlaysaa gabadhaasi ninkaas isguursadeen adigu ninku wuxuu noqday nin dilaaya dhowr dumaru ku dilay meesha la yidhaahdo qaahira adigu waa taa ninka maxkamadda iyadoo la saaray aragteen waa iyadoo dil lagu xukumay waa idinka arkayay markaa gabadhaasina iyaduna ilmihii yaraabay imka raadsanaysaa iyada laftirkeeda iyo walaashii dhowr jeer isku dayay inuu dilo marka waxa weeye horta balaayada ilaahay hanaga hayo laakiin marka nin guursanaysaan hablow bal qofkan backgroundkiisa iska raadi iska maxaan dhahdaa baara innagaba way nagu jiraan niman wax soo dilay oo intay wax soo dilaan hadhowta odhanay gabadh maa raba inaan guursado way jiraan marka ilaahay ha sahlo xaalada adduunka alla ha sahlo so taasna waa taa anigu waxyaabaha daan la yaabun baan idiin soo saaraa maogtahay mid ala tiktokan iyo waxaaba iminka dadkii markii hore dadka dila iyo waxaas weyra dhundhumin jireen laakiin imika ma dhowmana tiktoka lasoo fadhisanayaa facebooka lasoo fadhisanayaa iyadoo ummadii la gumaadayo la laynayo ayaaba lasoo fadhisanayaa meeshii marka waxa weeye wax imika qarsooni maba jirtaba yaa ceebay tacaal bay noqotay wixii la qarinayo oo dhan sheekadan imika soomaaliya ku saabsanta iyo qaadka alla yaa rabbi nimanka soomaalida iyo qaadka waxa kala haysta bal idinku ninka dhegeysta subxaan allah markiisa ninka wuxuu leeyahay qaadka ayaa lasoo qaaday waxbuu moogta ka digayaa qaadka ayaa lasoo qaaday halkaa gaariga weyn la baadhay waxaankaas ninkii kuwii gubayay mid ka mid a oo xagga dambe taagan qaadkii gubaya in roodala u qaato xagga muxuu gashay surwaalka dabadiisu gashada shaqaalii baa waxadaya marka soomaalida iyo qaad dhibaata kala haysata weligood kala hadhi maayaan soomaalida iyo qaadkaaska maxaan dhahdaa waxaasa dhibkaasta kaleysa war wuxuu waa darooga iska daaya halkaasaan kaga baxaya khayr baan idin rajeynayaa waxaan rajeynaya inaa maxaan dhahdaa ka heshaan maxaan like bal xooga u saara sibaa u yara gaabisan beryahani bal like bal xooga yaraa maxaan dhahdaa idinkuma taagna maxaan dhahdayay qarash ku bixin maysaan idinkoo maasan bahasha dhag ka siiya sheer gareeya inta cusub ee soo dhow maxaan soo raacdina waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin khayr baan idin rajeynayaa peace